dagaal qorshaysan oo ciidamada nabad sugidda gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Balad Xaawo iyo Doolow ay ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada Caano Qumow qanin yaale ayaa dagaalka xooggiisu maanta uu ka dhacay dagaalkan oo socday muddo saacada ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke oo hogaaminayay howlgalkan ayaa sheegay inay ka war heleen tiro ka tirsan Al-Shabaab oo deegaanadaasi ka waday xoolo ay ku sheegeen sakawaad oo ay dadka ka aruurinayeen taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee degmada Balad Xaawo Cabdulqaadir Xuseen Ibraahim oo warbaahinta kula hadlay aagga dagaalka ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen iyo qasaaraha ka dhashay dagaalkan marka ugu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadnaqaynaa runtii maanta ay taariikhdu tahay taariikh 12 bisha sagaalaad wargal ay fuliyeen ciidamada nabad sugidda ee qaranka ee degmada Balad Xaawo iyo Doolow ee ka fuliyeen deegaanada runtii ku xeeran Doolow iyo Balad Xaawo arintaas maanta ma sha Allah wargal wanaagsan ka dhacay oo guuleysanay nimanka qawaariijta ahaa ummadda Soomaaliyeed goobayay dhiigooda jiqayay baadda ka qaadanayay aragtay waxaan ku gaarsiinay jab runtii waajibinay waxaan dilay ilaa iyo 6 qof ma aragtay dhimasho ilaa iyo 4 qof la dhaawac ma aragtay way ka dhaawacantay annagana alxamdulillah rabbil alamin dalada Allah subhanahu wa ta'ala ciidanka iyaga wax soo gaaray ma jiraan howlgalkaas oo ay runtii maalmahan dhan wadeen inay ku qaadaan ummadda Soomaaliyeed ay ku qaataan ma aragtay hantida ummadda Soomaaliyeed ay maalmahan dhan wadeen runtii jabkuna ka soo gaaray ma aragtay howlgalkaas oo qorshaysan oo la qorsheeyo ahaa waxyaabaha aad ka soo furateen oo markaasi oo maanta soo gashay gacanta ku soo dhigteen maxaa kamid ah runtii su'aal wanaagsan waaye waxaan ka soo furnay gaadiidkaas aad u jeedaan oo baabuurkaas aan ka soo furnay ka carreen runtii oo aan soo qabanay gaadiidkaas aad u jeedaan waxaan ka soo qabanay hantida ummadda Soomaaliyeed ee ka bilaaqaysteen oo xoolahaas ma aragtay runtii annaga xoolo badan bay meel isku keeneen oo ma aragtay meesha isku keeneen laakiin maanan ma aragtay xoolo annaga aan qaadana maanan heen runtii xoolihina waxaan sameeyay inaan dadkii ilaa xalay ilaa shalay hantida ka ururinay inaan dadka xoolahooda u celino dadkina xoolahooda ma aragtay la wareegeen ayaan sameeynay waa dhamaan intii ay shalay ilaa dadka ummadda ka ururinayna ay ka soo qaateen ama baad ay uga soo qaateen runtii waan u celinay shacabkii ma aragtay waxyaalaha dadka ku baadan waaye waraaqahan waa waraaqaha ma aragtay dadka ay baadda kaga qaadaan ayaa ma aragtay ku jiray kasab jeedamba sidoo kale way ku sheegeen ma aragtay maxkamadda way ku sheegeen walaayaha waxay ku sheegayeen dadka markaatiyaasha ay sameynayeen waraaqaha ma aragtay in abuurka ay sameynayeen ayaa kamid ah jeedaan waraaqaha jeedaan ayaa kamid ah waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan sii wadno ilaa iyo intaan ka xoreynayno nimanka nabadiidka qawaariijta runtii gafanayaasha ku naaxaya ma aragtay dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo runtii hantida ummadda Soomaaliyeed jiqaayo insha Allah mana harsani doono mana fariisani doono insha Allah intaan ka xoreynayno runtii ka dhamaanayna ka cilabtirayna wadankeena insha Allah ma aragtay wargalkan waan wadi doonaa marka waxaan leenahay dhamaan ummadda ma aragtay ha ku kalsoonaato deegaankan ciidankooda ha ku kalsoonaadeen ma aragtay dawladooda ha garab istaageen ma aragtay qarankooda iyo ciidamada qalabka sida runtii ha la garab istaago ayaan leenahay kuwaana waxaan leenahay insha Allah inta maanta dhacday iyo in ka badan in kala waa sugaan insha Allah aqarana jahannama galeysaan adduunkana cariiri iyo waxaad ku noolaan doontaan iyo ma aragtay dib ayaad ku noolaan doontaan leenahay مولد جامع فرح مولد قلواق ورباهين تشابيل مقالة قربهاري يحرون تقوبل كجدو